breaking news waxaa food isdaray ama dagaal ba'an ka qarxay xidigaha kooxda kubadda cagta Arsenal xidiga ka mid ah. Dagaalkan ayaa la shaaciyay xalay kadib kulankii ugu dambeeyay Arsenal ciyaartay. Waxaa kooxda Arsenal u soo laabtay weeraryahankeeda dhawaangalka ah ee Gyökeres. Gyökeres iyo Bukayo Saka waxay ahaayeen xidigaha bedelka u yimid. Dagaalka meesha ku qarxaan idin taabanaya. Bukayo Saka ciyaarta dhamaadkii markay mareysay horta inta dhamaad la gaarin Bukayo Saka wuxuu helay dhowr chance oo sameyn karo karoosa si Gyökeres uu gool ugu ansixiyay. Gyökeres mar walba Bukayo Saka leenka soo jabsado Bukayo Saka wuxuu leenka soo jabsado Gyökeres wuxuu qaadanayay booska looga baahan yahay strikerka aba number 9ka si saaxiibkiisa caawimaad ugu helo. Laakiin Bukayo Saka inta Gyökeres kubadda uu siin lahaa taas bedelkeedu wuxuu sameynayay wax loo yaqaano back ball. Wuxuu diiday in Gyökeres uu goolsha u ansixiyo kooxda Arsenal. Laakiin tusaalada ugu weyn waxaa lagu arkay markay Bukayo Saka goosha u dhalinayay. Goosha Bukayo Saka uu dhalinayay waxay ahayd counter attack kooxda kubadda cagta Arsenal haystay. Waxa dhax ka tur fiican u soo sameeyay ninka la yiraahdo Mikel Mourinho dhax ka turkaas markuu soo sameeyay Bukayo Saka wuxuu helay kubad furan. Kadib Bukayo Saka waxaa lagu raacay inta horta Bukayo Saka laba xidig ayaa soo bursatay. Kadib saa adiga meeshaas ka aragtid Bukayo Saka marka laba xidig aday soo saareen Gyökeres wuxuu istaagay leenka meel ka baxsan oo boos fiican ah oo kubadda hadii loo taabto si fudud gool ugu ansixin karay. Waa optionka koowaad. Ma sameeynin Bukayo Saka kubadda inuu jiitay uu sii celiyay. Markuu saas u celiyay oo labada xidig mid hor ka soo maray Bukayo Saka midna dhinacan ka soo barashar gareeyay. Gyökeres leenku ku soo bixay banaanku u istaagay si kubadda marka loo baaso oo asiga darbad xur ah uu gooshaas uga ansixiyo. Mar labaad Bukayo Saka wuxuu ka doorbiday inta Gyökeres siin lahaa 50-50 inuu si toos ah gooshan u aadiyo. Bukayo Saka gool hayaa wuu taabtay inuu save gareeyo isku dayay. Laakiin maadaama darbad kulul ahayd way ka farabaxsatay. Gool hayaa inuu qabtay oo darbada qaboojiyay way ka sii farabaxsatay. Diilinta ganaax iyadoo wax yar dhaaftay oo haddana gool hayaa soo celiyay gacan ku soo celiyay. Taas bedelkeeda referee ayuu waxa u ansixiyay inay tahay gool. Sidaas ayay ku heshay kooxda kubadda cagta Arsenal goosheeda labaad iyo kulanka natiijadiisa saxda ah maadaama kulanka uu ahaa 1-0 oo la filayay kooxda kale xitaa inay la imaan karto ugu yaraan drowga. Kulankaas gooshaas waxay ahayd gool Arsenal muhiim ah. Taa bedelkeeda Gyökeres waxyaabihii lagu sameeyay asigoo iska indhatiraya wuxuu isku dayay mar kale saameyshaas ka aragtid inuu la dabaaldego goosha uu saaxiibkiisa Bukayo Saka dhaliyay asiga oo rabay inuu gacanta qabsado kadibna hore u la cararaan si ay dabaaldega si wada jir ay u sameeyaan. Bukayo Saka gacanta markuu u taagay saaxiibkiisa uu iska leexiyay kaligiis ayuuna sii cararay. Marka meeshan waxaa ka muuqdo taag ama indhacadeys ay isku dhacayaan labadan xidig. Ciyaarta markay dhamaatay kadib haweenkii wareysiga la yeeshay Gyökeres wuxuu yiri Bukayo Saka ma ogolo inuu i caawiyo mana ka filayn inuu dhaay aniga kooxda marka imaanay Bukayo Saka saan u maleynay sida hadda noqday isma lahaanu dhaay. Bukayo Saka waxaan u maleynay inuu yahay ciyaaryahan ixtiraam badan oo wax walbana ka hormarinaya guusha kooxda si ay kooxda u guuleysato xidigaha oo idil Arsenal inay gacmaha isqabsanayaan. Laakiin Bukayo Saka uma muuqdo dhaay mid guusha kooxda faa'iido u ah. Kaliya faa'iidadu wuxuu ka dhigaa in qof ataagareysto ama kaligiisa shaqeysto. Waad aragtaa oo dhaay 90 minutes aniga iyo Bukayo marka isla ciyaarayna kama helo baasaska fiican marka aniga galo ama aan goosha ka dhalin karo kama helo Bukayo Saka wax caawimaad ah. Dhinaciisa wax caawimaad ay ugu imaadaan. Sidoo kale ma ogolo kubadda inaa ila baastamo xitaa marka aniga boos u qaato. Qof walbana wuu arki karaa oo dhaay waa wareysiga Gyökeres. Qof walbana wuu arki karaa inuu target iga dhiganayo Bukayo Saka. Mana garanoo dhaay sababta. Waayo waxaan nahay laba xidig oo isku koox ah. Labadeena waxaan u soconaa hal dhinac oo ah in kooxdan caawino. Guusha kooxdana waa guusha dhamaanteena. laakiin
taas beddelkeeda Bukayo Saka wuxuu ka doorbidayaa inuu i ataagareysto ama in uu aniga ii diido inaan gool dhaliyo. Inaan aniga gool dhaliyo wuxuu ka doortaa in kooxda gool la'aan ahaato. Sababtaasna ma garanayo dhah. Maadaama uu yahay Bukayo Saka xidig ugu fiican Arsenal, waxaan filayay imaashinkay inaan ka helayo caawimaad si kooxda ay u noqoto koox heer sare ah. Laakiin qof walbo bilowga xilli ciyaareedkan anigoo xaaladda igu xun tahay oo aan kooxda ku cusbahay ayay Arsenal waxay heshay penalty yiri Victor Gyökeres. Penalty-ga Arsenal markay heshay aniga waxaa la ii doortay penalty tuuraha ama rigoor tuuraha kooxda kubadda cagta Arsenal. Saas ay tahay penalty-ga markii kooxda kubadda cagta Arsenal helaysay waqtigaas Martin Odegaard garoonka wuu ku maqnaa. Waxaana kabtanka kooxda Arsenal ahaa ninka la yiraahdo Bukayo Saka. Durba Saka wuxuu qabsaday rigoorihii wuxuuna isku dayay inaan tuuro. Anigoo ixtiraamayo Bukayo Saka waxaan ka codsaday penalty-gaas inuu isiiyo si aan aniga u laato. Laakiin Bukayo Saka ima muujin wax ixtiraama, xitaa iguma muujin inaan ahay xidig kooxda ku cusub aan u baahanahay soo dhaweyn. Si cad ayuu igu diiday penalty-ga. Saas ay tahay aniga wax uqdada uma qaadin oo waa aan ka socday. Tan ilaa waagaas Bukayo Saka wax raali gareynayo ima siin. Waxaan u maleynayaa ciyaarta markay dhamaato inuu raali gareynayo uuna ii sheegayo muhiimada inay ahayd in la dhaliyo oo taasna aniga ay asiga sameeyay. Laakiin Bukayo Saka wax raali gareynayo ima siinin. Tan ilaa waagaas Bukayo Saka ma ogolo inuu i caawiyo. Sidoo kale arintan waxaa kaloo ka hadlay legendkii weynaa ee kooxda kubadda cagta Arsenal ninka la yiraahdo Henry. Wuxuu sheegay inay tahay Bukayo Saka waqtigii keedka la dhigi lahaa. Maadaama Arsenal ay hayso Nuno Midwoki, Bukayo Saka waa in keedka la dhigaa. Sababta koowaad waxay tahay bandhigiisa wuu liitaa, mana ahan Bukayo Saka midkii la yaqaanay. Taas wax koos garay ma aqaaniyo dhah Henry. Laakiin Bukayo Saka bandhigiisa waa mid liita. Sidaas darteed waa inuu nastaa oo keedka la dhigaa si xidigaha kale ay u caawiyaan kooxda. Marka ninkii Bukayo ahaa leenka ku qarxay. New contract inuu kooxda u saxiixayna waa la rabaa. Contractiga cusub waxaa ku dhowdahay Arsenal in la isku dagaalo. Sabax keenayna waxay tahay bandhig liita Bukayo Saka iyo inuusan ogoleen xidigaha Arsenal in si wada jir ay u shaqeeyaan. Hadda waa sida jaraa'idada caalamka qorayaan ma ahan hadal aniga dhahay. Sida qof walba uu arki karana way tahay Bukayo Saka ma jecelo inuu caawiyo xidiga Victor Gyökeres. Marka waxaa la leeyahay maanta Bukayo Saka booskiisa ha laga ciyaarsiyo Nuno Midwoki si kooxda ay u hesho caawimaad oo weerarka ah ayna u noqoto koox mid ah. Bukayo Saka uma socdo dhahay Henry. Bukayo Saka ma ahan uu Bukayo Saka aan aqaanay oo caabinta badnaa, gool dhalinta badnaa, wax ku dhacay ma aqaani. Malaha marka meeshaas waxaa ka qeexan kartaa Bukayo Saka inuu bilooway xaasidnimo. Taas beddelkeedina asigina wax natiijo ah uu waayay, horumar uu sameeyayna uu waayay. Marka maamulkii Arsenal waraa ku soo yeeray weesha ku soo yeeray Victor Gyökeres inuu ka dhawaajiyo in Bukayo Saka uusan ahayn nin ixtiraam badan oo respect siinaynin. Taas waxaa ka